السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا دمان كحرن بيشكينا صومالي تجاوب 21 walaalyaal soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan nii sheego calaamadaha ama astaamaha lagu garto haweenka laylatul qadriga marka soo dhawaada fiidiyogan haddii aad ka heshay leeg saar waxaa kaloo nii sheegaya su-aashan in aad danka kumatiga ugu soo jawaabto waxaa la dhahay sheeg wadankii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee baasaboor samaystay A Kenya, B Uganda, C Soomaaliya, D Nigeria. fadlan danka hoose ee kumatiga ugu soo jawaab marka waxaa rabaa inaan niilo wadaago calaamooyinka iyo astaamooyinka lagu garto haweenka laylatul qadriga anaga nooma sheegin haweenka saacadeed tahay xilliyeed tahay taariikhdeed tahay laakiin nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu noo sheegay calaamooyinka lagu garto haweenka laylatul qadriga ayuu noo sheegay fadlan dhagahaada fur calaamooyinka lagu garto haweenka laylatul qadriga waxaan ka soo qaadan doonaa saddex calaamad ee ugu waaweyn ayaa ka soo qaadan doonaa hadduu Ilaahay idmo calaamadii koowaad aan ka soo qaadanayn waa haween jabigeedu uu degan yahay waa haween jabigeegu uu qatar yahay haweenada waa aragteen xabad iyo balaayo laakiin haweenka laylatul qadriga waa haween jabigeedu uu degan yahay jabi qatar quruxna caw fiican waa haween waxaan dhahay jabigeedu uu degan yahay calaamada koowaad waa haween jabigeedu uu degan yahay calaamad labaad waa haween leer nadiif ah socoto waa leer qatar ah oo nadiif ah oo dhaxan lahayn calaamada ugu dambaysa ee saddexaad haddii aad soo qaato waa haween la mid ahayn haweenada waxay leedahay iftiin qurux erka dhan waa la wada iftiin